سن بلد وين ولا ولا يقانا مكان لبعض سنة دورية طبعا إلى 6 سنة بيسوق كوتشرتي ملا شيء كذا يوم بالغ يا باين حلقة صوير هذا القاضي قفكي عم السقالة ذو هيستا معن مقرين وقت جالس بتكون يستقال بقوليه تطبعات كيو مقالة اللي هذا بلد وين بارونيني أنا سويت شر معلمين يا عرطيو كوح من التريا برنامج حنونينا رواية حنونينا وقت جي وذات كي تكتال كقبص ضيو marka waxa gobolada oo dhan haloo baxo la soo hanuuniyo marka anaguna iskuul oran jiray dhagax tuur oo secondary ku yaala xamar ardadiisii baan wadnay aniga ku jiray ragga meesha Maria Xasan Sheekh Muumin baa ku jiray salaad maxamed kale salaad darbiye heesaaga baa ku jiray maxamed warsaman la yiraahdo isna heesa Abdi Karim Jiir aduu rag waaweyn oo caynkaas oo suugaanta ku caanaano ahayn iyo arday iyo kooxda musica tumaysa riwaayada ka tumaysa militariga marka anagu markii hore Baydhabo tagnay Baydhabo loo diray iskuul walba gobol baa loo diray anaga gobolkiina loo diray Baydhabo marka Baydhabo soo dhameynay yaa la yiri beled weyne iskuulkii loo diray muu tagay idu xagaa ka soo wareego beled weyne taga marka beled weyne aan habeenimo soo galnay habeenkii marka waxaan loo nalasiiyay meel hanuunina halkii waan iska seexanay aroortii way tooseen dadkii anigu keligay hurda ayaa laba macallin oo marka beled weyne wax ka dhigi jiray waanu isniqilay igu yimaadeen meeshaan go hurda way toosiyeen marka maqaayad webiga Shabeelle magaalada ku taalo maqaayad ku taalo webiga qarkiisa ayay geeyeen halka baan ka quraacnay dibadna waxay wax soo tusnaa bundada la yiraahdo liqliqato webiga magaalada ku dhex yaala waa bridge ama bundad maxaa laga yiraahdaa boonkaas oo aan baabuurtu ma martay dadku baa maro waa mid qoriyo waxa doonaysa handuluk baalka yar carruurta loo xidho maradan loo xidho maaragtay marka la seexinayo exactly waa sidaas oo marka aad bay u kooban tahay oo qabeetana marka lagu dul socdo laftiga labada gaftiin bay ka xidhan tahay oo maaragtay inteeda kale saas isaga lulataa moogti biyuhuna wabiguna wuu hoos maraya liqliqata leeyahay waacaan waxaan ku soo tusayna bundadu ima cusbo maanta beled weyne iguma horeyso dhowr goor oo hore ayaan idin waxaa la okay hadaba iskuulka secondary-ga cusub ee laga dhisay webiga dhinaciisa kale ina keenan oo halkaas iyaguna macallimiin ka yihiin laakiin waan iska soo raacay markaan bundadii sidaa u soo koray ayaa inkastoo aan bundada hore u arkay haddana dee qof magaalada degan iyo qof kulleyba markaa yimi isku xiisa maaha waa yar hakadayo xagga hoose xoolaha ka cabaya dad baa ka dhaansanayo marka iyagina way gudbeen oo dhinaca kale ku taallay isoo istaageen anna cabaar baan markaanu dhinaca ka soo koray cabaar baan iska yar daawaday xoolihii iyo dadkii iyo kuya maaragtay xaggii hoose weygii uu ka hoosay cabaar ka saa u daawaday waa sidaa u ahaan baan dabatay istadbay waxaan iska dhaqaaq oo ilamadii ka dabatay gaftinkii aan bundada ka joogay mooyaane dhinacii kale ayay gabadhi ka soo kortay boonkaas bridge-ka waa goor subaxa 9:10 gabadha timo dheer bay leedahay timuhu waa u furfuran yihiin xagga dambena cadceedii baa timaha ka haysa dabeedna istadabkii aan istadbay dhaqaaq waan dhaqaaqi kari waayay walaa halkay gabadhu ka soo wartay ilaa albaabkaas ay jirtay qiyaastii dabeedna waxaan sidii talow hal ama laba ma ku tiraahdaa gabadha iyo war gabadha Soomaaliyeed waa la iska yaqaan haday doonto markay ku caayaysaa aniga inta naftaydii baa murmaysa waxba ha ku oran intii aan murankii intaan ishayeeyay gabadhii soo dhawaatay oo dabeedna inaan faduul meesha u taaganahay bay aragtay oo dabeedna waan eegayo waan baqayaa anigu ma ogtahay dabeedna markaas arkay gabadhii yar muusoonaysa yar qoslaysa dabeedna waxaan war gabadhii mala waa mikir magaalo ku caay maysay iska yara faduuli ani faduusha keentay heesta uun baan doonayay inaan dabeedna hadaba afay garanaysa baa ku faduulin laba eray oo carabiya ayaan maaragtay marka ku yiri waxa subhana man khalaqaki yani waxa nasahan ilaahi ku abuuray mugta ama kii ku abuuray ayaa nasahan yani waa eray ama carabtu eray carabiya wala subhana marka wax la yaabo waxa marka hadii kulli intaas garan maysay intaas ka faa ka yiri subhana man khalaqaki ayaa shayga cajiibka waxa uu ahaa inay gabadhii maaragtay ay jawaabta celisay carabiga ku celisay waxay tiri shukran bay tiri shukran marka taasay noqotay ta horta maaragtay ila si daadigti dabeedna
ilaa bundadii baan dhex taagnahay gabadhii markay soo socotay meel iga dhaafta ma jirtay iyana way istaagtay waxaan sidee gabadha adaa meesha taagay oo ilaa faduli afka la galay bal haddaba wuxuun ku dheh lawaad nacasinime markaa wuxuu kale waan arkaado xaggan aad ka timi ma dhinaca aad ka timi baad degan tihiin mise dhinacaan aad u socoto si isku kalsooni leh raganimo leh aftahamo leh ayay gabadhii waxay tidhi maya xagganaan ka imi baan la degannahay qofka tale dadku kala buruud sareeya xaqiiqo waxa weeye marka intaas markay dhacday aniga biyo qabo baa la igu shubay gabadhii iska daa hadal ku leedahay waan eegi kari waayay dabeedna mar dambaan iscanaataan idhi war heedhe sidoo waa nacasnime markii aan hadda laga soo bixi waabay tidhi miyaad jeceshahay meesha aanu deganay inaan ku soo tuso waaba caynka cajiib si iska nacasnimo baan waxaan ku idhi haa oo runtii aan markaa waxba ku fadhiyin ujeeddo lahaynoo iska dheh way istadabtay waxay tidhi ina keen marmar baa dee had iyo goor wax aanad ku talagelin markaad la kulanto wash bay kaa tidhaahdaa moogta inantii baan sidii neef xoolahay wadato iska dabagalay buundadii baanu ka dhammaanay inamadii baanu sii dhaafnay geedkii bay hoos joogaan waxay u qaateen gabadha inaanu isgarannay maan odhan isuga iyo iska taga midoo dee waanigan ma joogo intaanu jidka sii soconay gabadhu isaal bay weydiisay waxaad kolley magaalada ma tihidee xaggee baad ka timi waan u sheegay maya waa runtaa magaalada anigu maahiida xalaytaanu soo gallay moqoladii caynkaasa aydin ahaa oo adigu kumaa tahay bay igu tidhi magacayga wanaagsan baan u sheegay waxay igu tidhi garan maayo laakiin xasan sheekh muumin iyo haddii ilaahay ka dhigo salaad derbi iyo qolyaha waan maqlay waan aqaan bay igu tidhi waxaan aniguna naanaystaas baan leeyahay waqtigaas waxaa 1970 anigu markaa caanba maan ahayn markii dambe naanaysta u sheegay naanaystii bay garatay guri dayr weyn leh ayay hor keentay oo albaabka weyn marna la furay baabuurta ka gasha leh meel bay gacanta ka gelisay gudahay ka furtay soo galbay igu tiri geed ku hor yaalla gurigay tiri halkan igu sug gurigii bay gashay kursi bay ii keentay ayay tiri kulley waxaa jira wax cajiib ah oo harkii galay buuntadii dadkoo dhammi marayay kugu kallifay inaad iskay hor taagtide ma ii sheegi karaysaa waxaa kuu qasbay inaad halkii maaragta iskay hor taagto waxaan ku idhi way jirtaa bal qabsoo baan idhi taariikhdayda iyo noloshayda waa markii ugu horraysay meel bannaana aan gabadh is hortaaga baan ku idhi run baanay ahay ayaa jirta baan ku idhi laakiin imika kuu sheegi maaye markaan tago raadiyo muqdisho waxaan idhaahdo raadiyo muqdisho ka dhegayso waayahay bay tiri imisaad joogaysaan bay tiri waxaan idhi barnaamijkaasaanu sidnaayo 2 habeen ayaanu joogaynaa dabeedna waan noqonaynaa waxay tiri malaa waqtigii qadada markay aragtay inaanay raganimo igu jirin malaa waqtigii qadada iska tago bal 2 habeen markaa barnaamijka dhigtaan haynoo ahaato waa cajiib talo maxay damacday waayahay baan ku idhi si waa iska dhaqaaqay anigu markan talada ma lihi go'aanna ma gaari karo wixii ay tiraahdo baa jira moogti socodku way iga xun yahay haddii ilaahay ka dhigo aad baan u kala daadsanahay mar uu iyaa ka hor kacana intaa hoos baan maaragtay waan tigu malaqolad iyo qada doonatay meeshii aan ku soo degno maba qada doonay madaxiyo majaha dubo dhag baaban iska dhow 5 iyo barkii baa la toosiyay caawa barnaamijkii baa jira dee toosoo haddii ilaahay u diyaar garow marka waxay riwaayad ku saabsan in Cabdilla Xasan iyo daraawiishtii iyo dagaalkaas anigu in Cabdilla Xasan baan matilayay oo baashii madaxa go'ay cadaay madaxa lagu duubanayay iyo kii jeeray qaarkii iyo seefo iyo daraawiishii la socotay iyo wax riwaayadan aniga Xasan Shamuumi baa wada sameynay geeraaradan aan akhriyayo anigu anaa sameeyay intaas soo habeen baanu baydhaba ka dhigayno habeen wada matilayay meeshii baan imi laga dhigayay riwaayadda waxay silimo weyn oo ku yaala xamar waxa la beled weyn oo leeyahay shaqaale jimcaale silima shaqaale jimcaale dadkii baa soo buuxay dabadna waxa yiri nin baa wata leeyahay cali dheer ninka la baxay taliya baas wuxuu koray meeshii buu korayo wuxuu yiri riwaayaddaas BBC-na magaceedu waa ka jidadaas ka hadlaysa ragaas baa alifay ragaas dadkaas jilaya ku soo dhawaada marka markuu inta dhameeyay isugu soo daadegay cidda bedelaysa koraysa meesha bilaabaysa riwaayadda aniga ay ahayd
anigoo xertaydii wata ayaa markaa koray masraxii in Cabdilla Xasan baan bedelay mikrofoonka baan saa soo taagay markaa saa soo taagay baan dee kulliba dadkan bahalaha riwaayadaha dhiga waa iska caadi markay meesha soo koraan indhaha waxay siiyaan dadka saasuun baan isha u mariyay dadkii inantiyo kursiga ugu horeeya soo fadhidaan marka balad bageerarkii 10 habeen akhriyay adigu aliftay balad bahel hirig qoladii daraawishta ila socotay hoostayga gujinaysa inta dahay hadal halka kii cali dheere iyo kooxda inteedii kale oo xaqii jooga maqsinka yaraada halka ay gala hadlayo maxaa kugu dhacay wad wallahi bay ka tahay waan soo qaban waayay markii dambaan arkay inaan u baari baxay hadal iyo waxbaan isku jacburiyaan ka war hayno dabadeetana si degdeg ah meesha uga soo daadego waa leeyahay maxaa kugu dhacay waan xanuunsanaya halkaasaan kursi ula baxo is weydiinaya waxa igu dhacay baan ilaa hadda aanan garanayn waxa jira markii baashi dhaweyd baa sidaan isaga fadhiyay ay gabadhii ka soo kacday meeshii aan fadhiyay inuu soo gashay oo gabdhaha nala socda ee iskuulka ka socda ayaa qaar reer beledweyne yihiin oo ay markay soo koreen masaxa karatay abaar bay sheekaystay markii dambe ay tuwaxtay hay Said Maxamed Cabdilla Xasan iska war Saidku markii bisla suudka u qaadan jiray macaynkaas adigu saalaankaas oo mooy way habeenkii hore saasi ku dhamaatay waa tii bal marka labada habeen ay baashooday dhamaato hayno ahaato waxay dhamaysantayn warkama hayo marka anigu labada habeen baan ogahay habeenkii hore saasi ku dhamaatay habeenkii labaad showninkii meesha ka ahaa governorka barasaabka ka ahaa ayaa ninkii annaga madaxda noo ahaa u yimi oo wuxuu markaa labada habeen dhigtaan habeen saddexaad annaga noogu tabaruca oo waxa ka soo baxa aanu sportska gobolka aan hore ugu marino ku dhisno intaan noogu samafal noogu sameeyo shaway uu ka aqbalay habeenkii labaad baa la soo noqday halkii bay ka bilaabatay masixida soo koray mooyi mana daayo waa iska balwade sidoo ma dadku eegay laakiin marka habeenka gabadhu may fadhiyin si wanaagsan oo caqiibal oo raganimo leh baan ayaan qaybteedii u matilay dabadeedna baashii way dhamaatay markii intii ugu dambeysay lagu jiray baan anigu alaabteedii qaato dibadda u baxayo silimaha hortiisa ayaa kooxda inteedii kale isri ku sug ulba koorada waa sitay sida ugu tiirsanahay dadkii albaabka weyn buu ka soo baxay saas uu hormaray anigu waan baraad la ahay dabadeedna waxaan arkay dadkii soconayay 3 qof oo ka soo bayray waxay markay soo jireen bay laba istaagtay qofna hore u soo maray kaani waa gabadhii iska waran bay tiri waa nabad soo caawa hawsha idin kaga ma ekayn bay tiri may waxa idhi gobolka naga codsaday inaan habeen dambena dhigno oo wixii ka soo baxaan iyaga ugu deeqno waxaan idhi beledweyne leeyrkiisa waxa la baqtin jiray 12 habeenimo markaa ruuc bay laadahay waxaan idhi bal kulli waqti dambe aan ilaa ku sii dhaweeyo gabadhii baan israacnay inta ilaaha deysba gabadhii kale yahay heblaayo jaawo iyagii way iska tageen aniga gabadhii bay isku soo hadhnay waxaan ku sii dhaweeyeen wadi waan ka markaan buundada markaan webiga qarkiisii tagnay halkii buundada laga korayay ayaa leeyrkii la baqtiyay waxay tiri magaalada ka aqaano buundada ka gudbayay adigu hadhow soo gudbi kartid iska noqo diman hada habeen dambe aan maaragtay barnaamijkaasi jiro habeen dambe horta ku darsada showintii aan gabadha sii kaxeeyay baa ninkii barasaabka ku soo noqday ninkii madaxda ahaa wuxuu ku yiri waayo waxa yar cabanayay qolada music tumaysay militariga marka uu ku soo noqday wuxuu yiri habeenkii aan idin weydiisanay waanu ka noqonay fasax baatiina iska taga anna gabadhii waxaan kaga yimi habeen dambe ayaa barnaamijka dabeetana waxaan meeshii oo la iska seexday ana waan iska seexdo shantii barkiin baan qaylo iyo buuq maqlaya waan hurdaa waxaan si waad riyoonaysaa haddana waqti mala nus saac ka bacdi baan indhaha kala qaaday mise baabuurkii weynaa aanu wadanayba waxa la soo geliyay gudaha waa la raraya saasaan u soo toosay cidna lama hadinay waan iska sii jiifsaday dabeedna la kiciyay waa la tagayaa toos baa la igu xagee la tagayaa waa la baxaya meel caawa baashi meel jir wati leena fasaxay waxa kale ma sameeyay marka alaabta sitay iyo hawl kale ma galin qasabad halkan ayaan intaan wajiga mariyay biyo ayaan ka baxay meeshii oo makhaayad ka soo horjeeday meesha kuraasi dibadda taalaan mid ku fadhiistay oo shaaban isaga yeedhay idoo koobkii shaay hor yaalla baabuurkii oo la soo raray soo dhaqaaqayo makhaayadii hor yimid waa laga soo digayo dadkii quraac iyo shaah ay fadhiisteen kii madaxda ahaa bay soo fadhiistay cali dheera la yiraahdaa waxaan idhi war waan xanuunsanayaa kulaba in badan baynu maxamed ka sokaynay haddaynu caawa iska joogno oo aynu berita tagno ka war waayo dee gabadhii ayaan darada
joogtaa waxa weeye gabadhii oo aanu ku kala nimi waanu joognaa caawa kow iyo iyadoo saacadani saacad la sii mari karo oo la odhan karo dee waanu tagnayee nabadgelya aanay ahayn kiibaa markaa idhi waan xanuunsanayaa ma socon kare aynu caawa iska joogno wuxuu nimankan milatarigaaba ayaa haddii ay ka dhago degdegsan oo diidano waynu iska tegaynaa marka baabuurku sariir buu leeyahay shirka ah taa iskaga jiifso waynu iska tawakalaynaa waan arkay inaan raja jirin lagu joogaa marka dadkii intay ku anigu waan iska socday baabuurkii baan kurayo baabuurka dhexdiisa waxaad labadiisa dhinac kuraasi baa sidaa u safan dhexdana furshaan baa taalla oo maalintii ama habeenkii marka baabuurku nala socdo qofkii doonayaana furshaantaas ku seexanaya haddii aad doonaysana kursigaas waxaad ka daawanaysaa dhulka markaa intaan baabuurkii koray baan furaash iskaga seexday saan u jiifay ayaan arkayaa niyadan ka daawanaya waa la soo korayaa waa la fadhiistay waa kaa buuqa qeyrada dabeedna baabuurka la istaaray markii lagu rogay ee uu guuxay baan furaashkii ka soo kacayoo kuraasidii baan mid ku soo fadhiistay dabeetana sidaan u arkayay buu dhaqaaqay wuu socday beledweyne nin qofkii arkay wuxuu socdoo markaa waddadii dheerayd ayuu ku dhacay kursigii baan ku fadhiya weli magaaladii baan sii eegayaa marba marka adiga arkay marba way sii durkaysaa way sii yaraanaysaa adigu markii ugu dambaysay maaragtay ayaa sawirkii lumay dabeetna furaashkii baan iskaga noqday halkii baan iska jiifsaday dabadeedna waxaa lay toosiyey buulo burte iyadoo baabuurkii taagan yahay mala qoladii buulo burtaa baabuurka is hortaagtay oo tii na dhaafi maysaan caawa noo dhiga may horta intaanaan buulo burte gaadhin tuulo layado koronto uunu ayaan hurdadii aan galay waxaan ku riyooday anigoo weli beledweyne jooga oo dee meel iska barwaaqa oo gabadhii haddii ilahay ka dhigo aan gabadhii la joogo oo adigu sheeko caynkaasoo markaan toosay ayaa arkay mise koronto uunaanu maraynaa hurdadii baan ku noqday dabeedna waxaa ii xigtay buulo burti baabuurkii la hortaagay la leeyahay na dhaafi maysaan halkii baanu habeenkii joognay subaxdii baanu ka baxnay 12 maalinimaanu xamar gallay gurigii baan tago waan seexday 6 fiidkii baan toosay magaaladan jaadu doontay waxaan haddaba dee ilaa gabadhii sida ku kala timaadeen waad ogeydeen dee waad ogeyd sidaad ku kala timaadeen balaatan ballankii fuli dabeedna habeenkii baan u fadhiistay qalinkii waraqda waxaan kala qaaday iftiinadii iga soo galay daaqadda 6 subaxnimo dabeedna markaasaan ka kacay sidaan 7 qiyaastii meelaha u fadhiistay dabeedna sidaas bay haddii ilahay ka dhigo maartay sheekada gabadha la yidhaahdo beerlula iyada sheekadeeduna sidaas bay